gobolka shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay gobollada ururka al-shabaab ay meelo badan ka degganaayeen taasoo ay ciidamada dowladda soomaaliya dhowr jeer ay sheegeen meelo ka mida in la xoreeyey halka lagu magacaabo beriire oo ka tirsan degmada afgooye ayaa ka mida goobaha la sheegay ciidamada dowladdu inay joogaan haddaba xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxay booqdeen deegaanadaasi iyagoo halkaa kula hadlay ciidamada sida uu ku soo warramayo wariyaheenna cabdiweli online wafdigan oo iskugu jira wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najac ayaa gaaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ciidanka dowladda Soomaaliya ay dhawaan la wareegeen mas'uuliyiintan ayaa markii ay gaareen deegaankan waxa ay soo kordheen difaacyada ciidanka dowladda ay ka sameysteen Bariire gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najac iyo wasiirka amniga koonfur galbeed ayaa ciidanka commandoosta ay ku sugan deegaankan kula dardaarmay in ay sii ballaariyaan howlgalkooda amniga gudaha koonfur galbeed Soomaaliya oo xildhibaan dhammaan maamulka heer gobol heer degmo iyo heer deegaan ciidanka amniga maada saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mudan wasiir iyo wafdiga kale ee heer baarlamaan ee nala socda marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo halkan deegaanka Bariire oo runtii mar dhow ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen oo ay ka xoreeyeen qolooyinkii nabadiidka ahaa dowladdiidka ahaa iyo nolosha dadka iyo dadkaba ka soo horjeeday iyo dalkaba farxad weyn ay tahay inaan halkan ka mid ahaado wafdiga aad hogaaminaysaan ee maanta halkan soo gaaray runtii safarkeena safar dhulku ahaa waxaan halkan u nimid inaan dhiirigelino oo garab istaag u muujino ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM sidaas la mid ah waxaan halkan u imaanay inaan fiirino bal dadka yar tirada yar oo ku haray deegaankan oo kooxaha nabadiidka ay weli cabsigelin ay ku hayaan iyo buundada isku xirta magaalada oo 2017kii nimanka argagixisada ay burburiyeen oo ay qarxiyeen sidii dib loogu dhisi lahaa akiish ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada AMISOM oo runtii iska kaashaday oo na suurageliyay maanta inaan soo gaarno deegaanka Bariire si aan u ogaano xaaladda amni ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanka Bariire iyo baahida ay qabaan runtii markaan magaalo soo galnay waxa ugu horreeya aan aragnay waxay ahayd in buundadii Bariire cadowga al-shabaab ay burburiyeen aan la soo gudbi karin magaalada labada qaybood waxa ilaahay mahadiisa oo noo suuragelay inaan injineer aan horay u soo wadnay oo gudoomiyaha gobolka uu naga caawiyay marka injineerkii aan la socdo si loo cabiro loo qiimeeyo buundada qalabka ay u baahan tahay si dib loogu dayactiro ay u suura gasho isku socodka magaalada labada qaybood dhowr jeer oo hore ciidanka ayaa la wareegay Bariire balse waxaa dib u qabsan jiray xarakada al-shabaab balse hadda lagama hordhici karo sida xaalka uu noqon doono Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose